هذا هي في عندها مقعاه فرتول وحرتها هذا واسيدتها يا مقعاه ورد يا حلو ده يعيش خير ان شاء الله maxaa hadda siisaan idinka hadda anaga adeegan bixino waa medical haye iyo nutritionki nutritionka carruurta dhan waa siisaan soo ma carruurta dhan waa siina iyo dadka waaweyn wixii nafaqo darraa hooyooyinka uurleyda kuwa nuujinaya kuwaas oo dhan waxa lagu siiyaa haye keejiga miisaankiisu hadba suu yahay waa la siinaa haye 15 macnaha hadduu TSF barnaamijka nafaqada dhexeeyahayna bil baa lagu siinayaa hadduu yahay nafaqada aadka u liidatana waxa lagu siiyaa 7 bil hadduu yahay ilmahaasi ilmo markaas xanuun uu heliyo nafaqada darro uu heliyo waan dirnaa oo waxaan u dirnaa xarunta Qardha maxaa u baahan tahay aan u sheega maxaa ka baahidaadu maxay tahay meeshii lagu shaqeyn lahaa waa ciladu ka taagan tahay waxa u baahan tahay karavaan lagu shaqeeyo haye iyo medical supply-guna hadda jawaabtu sii maray iyadoo waa dalbanay oo dhinaca oo daawooyinka miya dhinaca nutritionkana laftigiisa hadda dalab ku jira biyaha laftigooda waan u sheegnay waa cod taasna waan ugu darnay maanta dhaweyto jadeecada ma aragteen jadeecada jirleed carruurta dhan ka muuqan lahayd waa la talaalay ha okay tiiman baa yimid dhowr tiim baa loo soo diray wasaaradda maantooda waa la talaalay hadda laftigeeda talaalku waa wadno maanta dhinaca geeskaas baa laga waday qaybtaana hadda waxaan ili keenayaa bahagaan ili keenayaa ya in inugu filana la keenaya marka la tiradooda anaa la soo hadlaya intii isku qoys isu dhowba in mid loo dhigo ya hadda madaxweyne waxa dhacday hadda kaasoo 40 reer ama 50 reer isku fuushay hadda meeqa tiro waa geliyada xageeda maar imisa haysaan baa tiri intaas oo dumar ah waa 10 miya waana 300 iyo 325 weyd qasmiga hadda dalab halkii qarbad meeqa reer ku furan yahay 10 ma ku filan yahay aduu tuma bacdi kale ka badan macdan ka badan macdan ya qarbad oo kale loo keeno oo loo kala ya basta taas waa taasna ka soo shaqeynayna hadii ilaahay marka madaxweyne kuwa kan haye dad baa 8 haye dad baa 5 dadku isma leekan ma qorshe la soo sameeynaya wallahi tiradiina waa la hayaaye 10 reer baa loo dhigayaa baanaan ka hadlay ma waxa la sameeynaya sidii la isu qaadan karo guddiga aan soo diraya inta qarbada loo baahan yahay sida la isu qaadan kara laga shaqeynaya waan il dhigaya hadda joogtaan baa cabaysa marka la guuraayo reer walba mid baa la siin doonaa dib male taas oo la noqonayo laakiin hadda waxa la rabaa wax la wada cabo insha Allah khayr bay noqonaysaa wixii la heli karo in la soo gaaraya ilaahay idinkiis raxmadan waa imaanaysaa biyahaasi waan laga caawinayaa iyo caafimaadka marka insha Allah waa kullay sidii ayaantii hore waa dhaantaan waa soo kabateen soo maaha sidii waa la dhaamaa ya caruura la qaado dhiglaan hadda dhakhtarka intii sidii waa la dhaamaa